waxaa soo baxday warqad lagu daabacay baraha bulshada oo sheegaysa in xiraalinta Puntland ay warqad u dirtay maxkamadda sare ee Puntland warqadaasi oo ay ku codsanayso in la mudeeyo fulinta kiiska ragga ku eedeysnaa ama la ku xukunaa kiiska Caaisha Ilyas haddaba waxay Puntland Post arrintaasi xiriir kala samaysay siyahayaha maxkamadda sare ee Puntland Nuur Ciise Maxamed gudoomiye ku soo dhaw markii horeysa Puntland Post waa dhawahay Cabdiraxmaan Ciise Cumar aad iyo aad baa mahadsantahay su'aasha koowaad aan ka weydiinaya arrinta kiiska Caaisha Ilyas waxay noqonaysaa maxaa hortaagan in la fuliyo xukunka ragga ku xukuman kiiska Caaisha Ilyas waa mahadsantahay Cabdiraxmaan xukunka kiiskan wuxuu soo maray heerar kala duwan ee maxkamadaha Puntland sida ogtahaba 12 bishii May 2019 sanadkan soo dhaafnay maxkamadda darajada koowaad baa xog go'aan ka gaartay 30 bishii June 2019 xukunkaas waxa ay yiday maxkamadda racfaanka 25 bishii August isla sanadka 2019 maxkamadda sare ku raacday inta kadib waxa jirtay dib u eegid ay u soo qaateen dhinaca eedeysanayaasha xukumanayaashu maxkamadda sare ay cabasho ka qabeen go'aankii maxkamadda sare ka soo baxay taariikhda hadaan ku sheegay maxkamadda sare waxay laashay go'aankii dib u eegista xukunkaasna wuxuu yaalaa maxkamadda sare isagoo sugaya fulin arrinta ay raacaysay maxaa hortaagan xukun gaaray fulin wax hortaagan ama la dhihi karo waxba hortaagan ma jiraan aad iyo aad baa mahadsantahay waxaa jirta gudoomiye warqad baraha bulshada lagu daabacay oo sheegaysa in xiraalinta Puntland ay warqad u soo qortay maxkamadda sare iyadoo ka codsanaysa in la fuliyo xukunka ragga ku eedeysan kiiska Caaisha Ilyas warqadaasi ma jirtaa Cabdiraxmaan aad baa mahadsantahay horta marka koowaad garsoorka Puntland ama garsoorka Soomaaliyeed siyaasad maaha shaqadiisu waa cadaalad iyo ummadaas inuu dhexdhexaad u yahay labada hay'ad oo kale tana uu yahay ma garanaysaa hay'ad u dhaxaysa anagu siyaasad kama shaqeyno baraha bulshada iyo waxyaalaha la isla dhaafsanayeen oo waxyaalaha garsoorka ka reeban maxkamadda warqadda ka soo baxda xafiiska xiraalinta ee ku socota maxkamadda labada xafiis baa is dhaafsanaya gacan kale oo saddexaad inay gasho waa faldambiyeed xaqiiqatan maxkamadahan annagana waxaanu kala soconno ma laha haddaanse u noqdo arrinta su'aasha ay weydiisay maxkamadda sare inta ka khusaysa waxa weeye warqad wayna soo gaartay xafiiska xiraalinta ka soo baxday walow hadda aanan taariikhdeeda ku sheegi karin xafiiska ayna joogin waqti shaqana aan ahayn ana xafiiska aan ku sugnayn warqadaas marka in la fuliyo kiiska Caaisha ma dhameystireen warqad dhameystiran ma ahayn codsiga xiraalinta waxaa la rabaa inay la socoto warqadii dhaxal koobka sidoo kale waxaa la rabaa inay la socoto warqadii ogolaanshaha qisaasta oo dadkan dhiigan lahaa inay qisaas ku qanceen ay maxkamadda ka dalbanayaan in loo fuliyo iyadoo la soo marinayo procedure-ka sida uu sheegayo maxkamadda darajada koowaad dadka dhiiga iskale oo dhaxlayaasha ilaa qofku uu dhintay dhaxlayaasha ay yiraahdaan hana loo fuliyo qisaasta waxaan rabnaa inaan anagu qisaasano hadda waa ogtihiino qofka bani'aadamka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala saddex buu dooransiiyey in la cafiyo diya laga qaato la dilo labada qodob maadaama meesha ay ka baxeen oo qisaas la rabo oo qofkan xaqi in laga guto waa in maxkamadda horteed la geeyaa xafiiska xiraalinta marka inuu soo gudbiyo galkii fulinta ayaa la rabaa marka xafiis ahaan annaga nama soo gaarin warqadda fulinta iyo warqadda dalabka qisaasta intaas maxkamadduna waxay sugaysay warqadahaas oo dhameystiran inay soo gaaraan gudoomiye haddaan su'aal kale ku weydiiyo sida aad sheegtayba xukunka wuxuu marayaa heer fulina maxaa marka hortaagan in uu si rasmi u fuliyo kaliya waxaa la rabaa in la soo dhameystiro warqadda dhaxal koobka maxkamadda la keeno iyo codsigii qisaasta dadkii qisaasta inay la hubiyey maxkamadda soo mariyey ay yihiin dadkii xaq u lahaa in loo fuliyo oo magaranaysa laga fuliyo dhibaatada u geysteen iyo dilka u geysteen Caaisha iyo cid walba oo disha dil geysata waxa la stage-kaas la mariyaa marka anaga dokumentiga hadduu soo gaaro maxkamad ahaan sidii aad ogeedeenba xukuumadda horeeto maxkamadda sare waxay ka martay sida xukuumadda ka muuqataba cadaalad bay ka martay waqti dheer baa loo maray haddana dib u eegidii baa la yiri sharci ma aha oo la joojiyey labada document hadday soo dhameystirmaan insha Allah taala
maxkamaddu way fulinta way qoraysaa xafiiska xeeraalinteena u gudbinaysaa maaha warqad baraha bulshada iyo meelaha lagu shaacinayo annagu arrimahaas oo kaleeto maxkamad ahaan maaha waxaan shaqo ku leenahay markayna soo gaarto insha allahu tacaala warqaas markayna soo gaaraan sida caadada ah oo aan fulinta u sameynaba xafiiska xeeraalinta loo qoraya xafiiska xeeraalinta hay'adaha kaleeto oo shaqada ku leh hadday tahay kuwa dardaaranka ka qoraya kuwa xagga caafimaadka la raba inay joogaan booliska halkaasay maraysaa waana shaqo joogto ah oo maxkamadu ay qabtaan bisha hadda la soo dhaafay waxaa la sameeyey fulin qisaas magaalada Qardho ay ka dhacday hadda 14 bisha aynu ku jiro waxaa magaalada Qardho sidoo kale waxaa ka dhacaya dil qisaasa nin dilay baa mudaysan maxkamadda kaliya hadda waxaa ku dhiman waa qisaasta in magaranaysa in warqadaas ay soo gaaraan ay amarto fulinta markaas la yiraahdo Caaisha kiiskeeda ku adeysnaa in xaqii lagu lahaa laga guto waana la sameynaya insha Allah taala su'aal kale haddaan ku weydiiyo gudoomiye ma jirtaa horta in madaxweynuhu uu markaasi saxiixo xukunada noocan oo kale marka la fulinayo waxaa la rabaa in la kala saaro laba arrimood maxkamadda ciidamada go'aamada ay gaarto sida al-shabaab iyo ciidamada nin ciidana dhibka u geysto dilka u geysto waxaa iska leh maxkamaddu way xukumaysaa waxaa iska leh saxiixooda madaxweynaha maxkamadaha caadiga ah oo madaniga hadba saa u taqaanid go'aamada ay gaaraan iyaga fuliya waana qodobka 248 halkaas ku qeexan yahay xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed marka madaxweynuhu ma saxiixin oo anaga hadda ka sheekeynayna fulintiisa heerka uu marayo sharciyanna madaxweynuhu ma laha maxkamadda sare iska leh waa gartay gudoomiye ugu dambeyn maxaa ku soo gabagabeynaysaa waraysigeena gabagaba ayaan maraynaa bal ugu dambeyn maxaad ku soo gabagabeynaysaa cabdiraxmaan ma hasan tahay anoo la hadlaya ummadda reer Puntland iyo inta af Soomaaliya ku hadashaba maxkamadaha waxaa ka socda shaqo runtii la dardar gelinayo hanaanka garsoorka sidoo kale to xirfadlayaasha la rabo inay shaqadan gutaan oo dad aqoon u leh ay ku soo badanayaan mar walba oo la rabo shaqo in la qabtana challenge iyo culays iyo caqabad waa imanaysaa kiiska Caaisha uu ka duwan yahay garan dacwooyinka iyo kiisaska maxkamadaha soo mara wuxuu noqday kiis heer international oo kale la dhihi karo oo ummadii oo dhan inay iyagu ka yihiin garsoorayaal shacabkii saxaafadii dadweynihii oo qof walba meeshuu ka soo gaaro uu ka haysto oo marinaysa inuu go'aanka wax ku leeyahay danayaal tiro badan buu yeeshay maxkamadaha Puntland waxaas dhag jalaq u sameeyaan cadaaladda Ilaahay baa iska leh haddana xafiisyada dawladda waxa jooga garsoorayaal xirfadlayaal ah oo shaqadooda maalinlaha guta siyaasadana in garsoor waxaan codsanaynaa oo soo jeedinayna marar badan ka hadalay in siyaasadda iyo garsoorka la kala saaro waxaa laga yaabaa qof dambi galay in la yiraahdo dawladda xukuumadda riixaysa waxa riixaya magaranaysa awoodo kale oo garsoorka waa la cadaadinayaa saamaha awoodda dawladdu way qaybsan tahay annaga waxa iyagu waa garsoor iyo cadaalad iyo xukun iyo magaranaysa isheeg nidaamkii loogu talagalay in la maro heerarka maxkamaddu ay leeyihiin maxkamad tan kuwa hadday wax kala rafaan baa jiraya rafaanka hadii qofka cabasho ka qabo maxkamadda sare laakiin waxaan jirin in la iska dhaadhiciyo oo runtii xaqiiqatan anaga aanu ognahay haddii dadku ay tuhmayaan ama ay jiri jirtay waayada horeeto in garsoore wax loo sheegay runtii maba arkin intaan shaqaynaynay hadda waxaan cadaynaynaa garsoorku inuu xukuumadiisa u madax bannaan yahay shaqadiisa u madax bannaan yahay waxaa soo baxday warqad lagu daabacay baraha bulshada oo sheegaysa in xeeraalinta Puntland ay warqad u dirtay maxkamadda sare ee Puntland warqadaasi oo ay ku codsanayso in la mudeeyo fulinta kiiska ragga ku eedeysnaa ama la ku xukunaa kiiska Caaisha Ilyas haddaba waxay Puntland Post arrintaasi xiriir kala samaysay siyahayaha maxkamadda sare ee Puntland Nuur Ciise Maxamed gudoomiye ku soo dhawo markuu horreysay Puntland Post waa dhawahay Cabdiraxmaan Ciise Cumar aad iyo aad baa mahadsantahay su'aasha koowaad aan ka weydiinaya arrinta kiiska Caaisha Ilyas waxay noqonaysaa maxaa hortaagan in la fuliyo xukunka ragga ku xukuman kiiska Caaisha Ilyas waa mahadsantahay Cabdiraxmaan xukunka kiiskan wuxuu soo maray heerar kala duwan ee maxkamadaha Puntland sida ogtahaba 12 bishii May 2019 sanadkan soo dhaaf
nabadi buuxda sama